fanaanada qaranka Soomaaliyeed ee Seenab laba dhagax ayaa daqiiqado ka hor waxay ka soo degtay aeroboortka caalamiga ee Kuala Lumpur aeroboor oo ku yaala wadanka Malaysia waxaana maalinta biri oo taariikhdu ay ku beegantahay 10ka bisha September ee sanadkan 2012 ay ku qaban doontaa wadanka Malaysia bandhig faneed aad loo soo qurxiyay kaas oo ka dhici doona hotelka caalamiga ee Kuala Lumpur hotel oo ku yaala bartamaha wadanka Malaysia fanaanada qaranka Soomaaliyeed ee Seenab laba dhagax ayaa waxay ka soo socdaashay magaalada Melbourne ee cariga wadanka Australia iyadoona maalmihii ugu dambeeyay socdaallo ay ku qabanaysa bandhig faneedyo ay ku mareysay qaaradda Australia iyo Aasiya waxaana la filayaa in fanaanada ay muddo 5 maalmood ay ku sugnaa doonto wadanka Malaysia caasimada Kuala Lumpur iyadoona uga sii gudbi doonto magaalada Dubai ee cariga wadanka Imaaraadka Carabta haddaba fanaanada Seenab laba dhagax markii ay soo gaartay wadanka Malaysia waxa ay saxaafadda kula hadashay aeroboortka caalamiga ee Kuala Lumpur aeroboor ee wadanka Malaysia iyadoona ka warbixisay socdaalkeeda ku aadan wadanka Malaysia waxaan ka imaaday magaalada Melbourne dalka Australia hadda ayaan ku soo degay magaalada Kuala Lumpur waxaan igu soo dhaweeyay jaaliyada Soomaalida iyo fanaanka Ciise Gupta safaaradda Mukhtaar oo ka socda iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed jaaliyada iyo dhammaan studentka waxaan ka tumi doonaa magaaladan maalinta Isniinta ah oo biri ah maanta waxa sharaf iyo farxad noo ah inayna garab taagantahay fanaanadeena qaranka Soomaaliyeed oo ah run ahaantii markaan ra'yiga ka hadlay inay tahay calan Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan ka wada dhaxeeya inaan ku soo dhaweeyno aeroboortka caalamiga ah ee Malaysia iyadoo bandhig faneed ku qaban doonto habeenada taariikhdu ay tahay 10ka September hotelka caanka International Kuala Lumpur Hotel iyadoo halkan aeroboortka ay ku soo wada dhaweeyeen dadweyne aad u fara badan oo ay horkacayaan gudoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed Mudane Mawlid Mukhtaar iyo hablo iyo rag intaba loo soo dhaweeyay iyagoo wada ruuxaya calamo qoyan mar walbana leh soo dhawow Seenab laba dhagax isku soo duuba markii ugu horeysay fanaanada qaranka Soomaaliyeed ee Seenab laba dhagax ay soo gaarto qaaradda Aasiya muddo ka badan 15 sano waxaana la filayaa in habeen dambe ay wacdaro ka dhigto caasimada wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur Ahmed Abuukar Ashari TV-ga caalamiga Somali Channel Malaysia